shirkadda midabsan oo wareysi gaar ah siisay telefishinka caalamiga ee Royal ayaa sheegtay inay adeegyo cusub u soo kordhisay macaamiisheeda sidoo warkaasi inoogu diyaariyay waryaheena Faisal Yusuf Kacaan. midabsan oo ah shirkad ku cusub guud ahaan geyga Soomaaliland iyo geyga Soomaalidu ay degto waa shirkad keentay adeeg cusub oo ka bedelan shirkadihii hore mobile advertising cover in mobilkaaga dushiisa lagu xayeysiiyo adeegyada kala duwan ee shirkadaada ama sawirkaaga ama sidoo kale lagu dulqoro magacaaga. shirkadan waa shirkad ku cusub gudaha Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa oo maanta ku booqanay telefishinka caalamiga Royal xafiiska ku leeyihiin magaalada Hargeysa ayaa isagoo Royal u waramay gudoomiye Cabdicasiis Maxamed Xaashi waxa uu ka sheekay marxaladaha kala duwan ee shirkadu soo martay iyo sidoo kale adeegyadan cusub ay gudaha Soomaaliland keeneen isagoo sidoo kale sheegay in ay ku tala jiraan in ay sameeyaan xafiisyo ay ku kala yeelan doonaan Soomaaliland iyo Puntland gaar ahaan Boosaaso Garowe iyo sidoo kale Boorama iyo Burco. dadkeenu aad u baahi qabeen waxay ka dalban jireen Nairobi iyo Imaaraadka kale laakiin marka dalkii hooyo la keenay horta aad baad ugu wanaagsantahay sida quruxda badan ee noogu soo booqateen shirkadda waxay samaysaa galalka anaga hayna oo shirkadda haysa qofku uu sawirkiisa rabo hadduu caalamka Soomaaliland kala rabo nooca astaanta qaranka iyo nooca caalamka Soomaaliland oo kala duwan uga dalbado oo diyaarna waxa kala soo qofka magaciisa ama kana magac qofka dula magaca uu qoro ama uu qornaa fikrada dhalinyaraha anaga ku dhalatay waxaana shirkadan ka mulkiila Cabdiraxmaan in la yiraahdo fikirkan keenay macaamiishuna aad bay noola soo xidhiidhaa gobolada waan geeyna markaan qorshe waxaan ugu jiray inaan gobolada ka furno waxaan aad ugu mahadnaqayaa labada gobol aad ka noola soo xidhiidha Boorama iyo Burco aad noola soo xidhiidhay qofka Boorama kala ka soo dalbada halkan oo uu sameeyna markii uu kala soo dalbada isla gelka dambe shirkadda sahal baan u saarnaa uu qaataa qofkaasi marka dadweynaha reer Soomaaliland hore uga dalban jiray dalka dibadiisa waxaan ugu bishaareynaa dalka gudihiisa waxaan ugu keenay si hufan aan u shaqeyn doono insha Allah dadku markii hore aan page-ka soo dhignay uu qaadan waayeen waxa malaha lama sameeyo wala sawirkaaga lama saarayo laakiin markii aan tusnay oo aan sawirada arkeen oo ku qancay dadka aad ugu farxeen oo waxay ka dalban jireen Nairobi oo kala dad safar ku gali jiray dheer laakiin markii dalkooda hooyo loo keenay aad bay ugu soo dhaweeyeen waan ugu dhiirigelinayaa shaqada halkan aan ka wadno waliba aan gobolada ugu tagno branch ka furno marka insha Allah waxaan gaari doonaa gobolka Boorama Burco Sool Garowe iyo Boosaaso qorsheyn ugu jirta inaan gaarno marka laga tago kofradana sameysaan oo decoration-ka ku sameysaan ma jiraan waxyaabo kale oo shirkadu ay macaamiisha ugu tala gashay oo aad sameysaan nimanka waxaan soo wadnaa inaan qorshe kale aan keeno oo waxaan wax cusub inaan keeno rabno ku soo kordhina shirkadda nimanka tirahan oo kale nimanka waxaan rabnaa inaan dalka gudihiisa lagu sameeyo oo dalka dibadiisa lagu sameyn jiray sample ahaan oo kuwan waa kuwa qalin jabinta jaamacadaha sidoo kale waxaan keenaynaa kuwan loofka dadka jecel iyo dadka isqaba guryaha ay dhigtaan ee baraha insha Allah loo bilad kadib shirkadda ugu soo hagaagaysan oo keenay iyagana page-ka iyagana nagala soo xiriiraysan insha Allah cid kasta waxa xiisaysaan oo baahan wagaasha mid kamid ah macaamiisha jooga oo midabsan kamid ah sidoo arkaan shirkadan midabsan iyo adeegyadiisa u bixisay wallahi aad baan ugu baahnaa oo wadanka ugu baahnaa shirkadan waxay ku soo kordhisay waxaan hore wadankeena uga jiray Soomaaliland iyo guud ahaan dhulka Soomaalida oo marka aad baan ugu hambalyeeyaa dhalinyarta gudoomiyaha shirkadda Cabdikariim iyo wakiilaha shirkadda Cabdiraxmaan waxaan anagoo ka mid ah shacabka Soomaaliland waxaa aad iyo aad ugu riyaaqnay habkan iyo decoration-ka mobilada sawirkaaga aad u qurux badan oo weliba quality-giisu waxaa yahay oo aad u qurux badan mobilkaaga aad soo saaranayso oo ka mid ah design cusub oo aan hore uga jiray Soomaaliland كون مركز أصحابها من الموضوع اللي كحولتها أصحابها اللي فهموا سيسولوا شركة هذه كلها تفرسوا. وتملك كورات سكورتي هم ولا القبا. أدبر الأمور تقول يا أي هذه فرصان وقالوا قالوا ولا القبا. سووا كانوا يقولوا سارن ولا قاعد يحرقوا الهدية. ومد البوها لو بحنا أنا لو بحنا كفاية هان أدبر الأمور يا أي
ka asxaab ahaan sidoo kale aad baa loogu riyaaqay dhinac walba oo ay tahayba aad baa loo soo dhaweeyey waan hambalyeynaya dhalinyarta da'da yar kusoo kordhiyey wadankooda wax soo saar iyo habganacsiyada faysal yuusuf kacan telefishinka caalamiga royal hargeysa.